oo la yiraahdo maqaamka muqdisho in garowe looga hadla soo dhaweynaa muqdisho waa magaalada madaxda Soomaaliya waa magaalada astaanta waa qaranka Soomaaliyeed maqaamkeedu inuu dood aan dhamaanin ku jiro aad bay noo dhibaysaa xaqiiq marka waxaan jeclaan lahayn dood furan oon cid ka sheeganayn Soomaalidu iyo miir qabta intay isugu timaado waliba muqdisho laga soo fogeeyo ilaa ninkii dooda weyn qabay hadii la gurigiisa loogu tago Ali Maxamed Geedi halka jooga waxa dhici karta hadii dhaqanku waxay noqonaysaa in laga careysin inaad maartay gurigiisa ugu tagto marka waxaan leeyahay in meel ka soo fog oo la isugu yimaado oo si fiican loo doodo qodobkaas waa qodobada ugu xasaasisan inta aan ka warqabo waxaan kale oo ii muuqanaysa runtii si la furan in loo wada hadlo waxa iyadana wehel ku soo dhaweynaya halka arinta Soomaaliya iyo Somaliland iyadana waa caqabad kale oo hortaagan dastuurka aniga saa u dhigi maayo Soomaaliya iyo Somaliland wax la yiraahdo sida hadda entity-gu uu jiro laakiin waxaan qabaa walaalahan gobolada waqooyi jira ama maamulka Somaliland inaan iyagana garow yimaadaan oo dooda ka qayb galaan oo doodaha ay qabaan ay soo dhaweystaan inaan doodeena dhiibano dadka la hadalno kama baqayno dadka reer Puntland waxaan ku boorinayaa inay wada hadal ka baqin haddii xujo fiican haystaan way haddii kale waxa u muuqanaynaa dad aan xujo haysan dowladda Puntland asaaskeeda iyo marxaladii loo maray iyo dadka aasaasta iyo xuduudaheedu wax mugdi oo ku jira ma waa cadi cid awood gaar ah u leh oo gorgorta ka gali kartana ma jirto dadka dhistay way cadi waa maamulka kaliya oo deegaanadaas dadka ay degan yihiin kulligood intay isugu yimaadeen muddo badan fadhiyeen go'aan rasmi ka qaateen oo iyada oo muuqaal iyo cod iyo document